dabkan oo dhaliyay khasaaro hantiyadeed iyo mid nafeed ayaa waxa uu ka kacay kaalin shidaal oo ku taala suuqa hoose ee degmada Walaweyn. dabka ayaana ka bilowday qarax uu sameeyay motor loo adeegsanayay xilligaas in shidaal lagaga saaro boyd shidaal. holaca dabka ayaa socday ku dhawaad 5 saacadood. dadaalo dheeri ah oo ay sameeyeen maamulkii shacabka degmada Walaweyn ayaa keentay ugu dambeyn in lagu guuleysto diminta dabka. gudoomiyaha degmada Walaweyn mudane Maxamed Siido Cabdiraxmaan ayaa ka warbixiyay khasaaraha uu dhaliyay dabka, habkii loo maray dimintiisa isagoo ugu baaqay madaxda dalka inay wax u qabtaan ganacsatadii hantida kaga burburtay dabkan. geego oo taariikhda ito 8 bili 10 2020 sida kulay lagu warqabay xalay meel hadan dhabarkay ka toosan macna waa meel kaalin oo shidaal ay ahay shidaalka gadaaw shidaalka keediyaw runtii ma dhax kornay macna meelaas ma ku dhiyay wal in ag oo masiibo iyo meel ku dhiiday runtii macna dab aad iyo aad in xoog badan oo aad iyo aad in xoog badan iyo macna meelan macna ku kihi dabkaas oo dhali macna booyd shidaal sheenti motor yar oo shidaalka lagu xiriiriyay oo gudaha macna fuustooyinka linka cabeeyay iyo dabkii ku bilaawday runtii isla markii qaraxa markii in horooyinka bilaawday kadibna shidaalkii oo dhan isla wada qabsaday ma malaasa in oo laba ciidanka dagaalama oo madaafiic lisweeyda sida amal dab iyo meelan ku kihi ما حدنا إلهي إنك مهديانه أو إلهي إنك مهديانه أو الدوام دي سأنا سيد إلهي إنك جرجاري أو حدنا معنا دبكي أسو حوج أساس إن لين حدنا إن نجنا إن أس دبكي فافو أو سو حد أنت حافظة كجرت لأن أي مديك وحافظ وبروي جارهن جوري إنك هروي أو بلاو ده جوري أنا دقن ويا أو بلاو ده لأن عامل كي فيري أو بدح ده أو لأن قلبتك أنا سوقي دقمدي ولا وين ويا ميل ونتاجنا أنت ويا وسوقي حافظي ميلك بلاو ده سوي runtii ma ku dhiiday arin oo aad iyo aad macna in yaab badan oo xoog badan iyo macna armeel ku dhiiday masiibo dhax korni laakiin haddana alxamdulillah ilaahay ku gargaaray masiibadii meeliya iyo ka koobanaad dadaal oo soo biin ku dib ma dhiiday in oo dabkii meeliska koobno meel had aan taagino guriga dhisan ahayeen meel had aan taagino guriga oo dhisan oo baqaare ah iyo ahayeen gadal waa kas aragaytan qashankii macna meel oo gurihii la jijabi baalo ilaahay macna nin sahal baalahaas guryahan oo dhan oo jabiyadi afarta dhinac oo wareegshay dhan walaana ka yaalan la jabiy sidaas marka dabkii meel ilaahay in ka koobi fuustooyinkii qaraxaan kor iyo aan bahayaan ilaahay hadin meeliyo ka nagaay macna midina in fuust inta xaafad in gudubto hadana suuqin in gudubto marka taas taa waxa way ilaaha badbaadasta oo nasi alxamdulillah ilaahay macna taas oo ummadan geegi oo badbaadi ilaaha aan ku mahadnagaan kulay taba إلهي نحرسه إن لله وإنا إليه راجعون نين أو موتوريست هاي علي عمره يوسف لهاي يكدمدي أو شدالك مركز أسشواي قرحي إنك هروي كول بالدرسي جودي يعني كدي سدي معنا قفكي بنانك سونغ بهواي كدمدي قفك لو أصلا مركز مساعد إن هاي كالمة هاي يا أصلا دعوة معنا سوداري أو أساس إن حقوق بدناي دبعتي إنتاس يا إلهي كوبي إلهي نحرس إن لله وإنا إليه راجعون يلين وقت شيء ميلس كده معاي كل نفس ذائقة الموت دولة جولات كونفور قلبات وإن هروي مدن مدحبين عبد العزيز حسن محمد لفت جران يو مدحبين دولة فدرال الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو يا دمان أنتي والقبضة كرت أريما هستاو دت دبعت أنت سودارتي والألوراي لين قبضة كور إن لين قبضة يسون كعد سدانة مع أحمد علي مع تشيكية تلفزيون كعالمي جارتي إن degmada Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose.